nahay wasiir Juxa oo kamid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta Soomaalida iyo Puntland wasiir Galdogob aan ku kulmayna maanta maalin taariikhi ah ugaaskii beelaha leelkase ama beelaha tanade leelkase la caleema saaray bal arintan waxay kaaga dhigan tahay dhaqan ahaan in abwaanna waa tahay soo dhawaada horta ku soo dhawaada Galdogob ku soo dhawaada caleema saarka ugaas Cabdiraxmaan ugaas Maxamed iyo Galdogob waa maalin muhiim weeye xafladan waa xaflad dhaqan caleema saarkii ugaaska guud oo beesha tanade leelkase waa la soo gobolka dhan waa la isaga yimi Soomaalida gobolada ay degto iyo dariskaba waa la isaga yimi iyo ka shayba xaflad fiican loo qabanqaabiyay xaflad dhaqan waay dhaqankii siyaasadana waa joogaa siyaasadina waa joogtaa waana xilli loo baahnaa dhaqanku waana badan yahay mana sana badna waana loo baahnaa dhaqan geed fadhiya oo nabadda iyo wada jirka ummadda runtii wax ka tara waxaan rajaynayaa inuu noqdo ugaas dadkiisu la socdo oo jecel yahay khilaafka badane ugaas nabadda iyo midnimada qayb ka qaata ayaan jecelahay oo u ducaynaynaa sida kale Galdogob waa anaga waa nimaanay magaalo nagu cusub maaha waa magaalada fiican oo ciida caskala hadaa iska fariisataan waa gogol cas boor xataa ma leh marka ku soo dhawaadaan leenahay geedkii cibtaha aaga laga helaa wax badan oo kale waa weheliyaan ku soo dhawaada aad badan ma santaa neebwana waa tahay Puntland waxay kamid tahay maamulada sida gaarka dhaqanka looga ixtiraamo bal arintaana Soomaalida maanta halkan isugu timid haddii aad tafaasiil dheeraad ka siiso walaal dhaqanku waa ku xoog weyn yahay goboladan wixii loo soo gaaro halkan gobolada dhaqanku waa ku xoog weyn yahay odayaal waa weyn isimaan dhaxna guud ahaan laakiin waxay leeyihiin magacyo kala badan oo hadda ugaas baa caleema saarayna boqoraad jira islaamaad jira suldaanaad jira garaadaad jira beldaasyaal baa jira inta u dhaxayso dhan baa jira marka gobolkan waa gobol dhaqanku xoog weyn yahay inkastoo gobolku badanayo dhaqanku badanayo hadduu batana sanad daradiisuna la socoto laakiin waxaan rajaynaynaa inuu gaar noqdo waa ugaas beeshu xulatay heshiis ku tahay waxaan jecelahay inay nabadda iyo wada jirka ay u noqoto saldhig waxaan jecelahay inuu siyaasadda uu ka fogaado intuu ka fogaan karo bahashaas waxay noqotay waa qaybiso weey marka waxaan jecelahay inuu dhaqanka ku ekado waan u ducaynaynaa hadda ku soo dhawaada dhulka wasiirada ma santahay sharaf ay